kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah kaga hadli doona transfer deadline-kii soo xirmay iyo dabcan ciyaartoydii la kala qaatay iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee kasoo baxaya maalinkii suuqa Yurub uu xirmay ee 31 Janaayo ahayd markaan ku bilowno gudaha Premier League ama Ingiriiska suuqiisa si rasmi ah u soo xirmay ciwaanada ugu waaweyn waxaa qaadatay kooxda Manchester United oo dabcan waqti ugu dambeeyay suuqa gacanta ku soo dhigtay weeraryahanka Nigerianka Odion Ighalo ay ka soo qaateen kooxda Shanghai Shenhua United. ciyaaryahankan 30 jirka waxay ku soo qaateen ama inta xil ciyaareedkan ka harsan waxayna kooxda kubadda cagta Shanghai Shenhua siiyeen 3 milyan oo pound oo horumaris ah hadii uu anfacana toos kaga iibsan doonaan. sidoo kale Man United waxay bixin doontaa 3 meelood hal meel mushaarka Ighalo oo dabcan kooxda Shanghai Shenhua Ighalo wuxuu ka qaadanaa toddobaad kasto 300,000 oo pound 100,000 oo pound kamid ah kooxda Man United ayaa bixinayso. Ighalo weligiis ayuu ku roon jiray kooxda Man United inuu ciyaaro ama inuu ka soo muuqdo masraxa riyada ama Theatre of Dream loo yaqaan Old Trafford. haatan riidis u suura gashay. Ighalo sidoo kale waxaa lagu tilmaamay shakhsi aad iyo aad u wanaagsan markii la fiiriyo lacagta waalida uu gudaha China ka qaadanay inuu ku caawino dadkiisa Nigerianka gaar ahaan carruurta saboolka ah. weliba waxaa la sheegay mashruuc lagu horumarinayo ama dabcan loogu adeegayo agoonta inuu ku bixiyo 1 milyan oo pound ku bixiyo dhismo sidoo kale qarashaadka lagu wada qaar kamid ah xarumaha agoonta lagu koriyo ee gudaha Nigeria ku yaalo. haddii aan ka soo tagnay Ighalo bal markaan aan fiirino deadline day gudaha Ingiriiska ciyaartoyda la kala qaatay kooxda West Ham United ayaa dabcan saxiix weyn sameysay kadib markii ay gacanta ku soo dhigeen Jared Bowen oo ay ka soo qaateen kooxda Hull City 20 milyan oo pound ay kaga soo qaateen. kooxda kubadda cagta Aston Villa waxay si free kaga soo qaateen naadiga Swansea City ciyaaryahanka lagu magacaabo Borja Baston halka kooxda Leicester ee Wolves ama kaga soo qaateen ciyaaryahanka lagu magacaabo Ryan Bennett. sidoo kale kooxda Sheffield United waxay gacanta ku soo dhigeen ninka lagu magacaabo Nicolas Restos oo u ciyaara kooxda Bayer Leverkusen ama ay ku soo qaateen. Chelsea ciyaaryahanka Tariq Lamptey wuxuu ku biiray kooxda Brighton qiimo aan la shaacin. sidoo kale Wolves waxay soo qaateen ciyaaryahanka lagu magacaabo Luke Matheson oo ay ka soo qaateen kooxda Rochdale waxay kaga soo qaateen ama oo la socota 1 milyan oo pound. sidoo kale kooxda Man United waxay soo qaateen goolayaha lagu magacaabo Nathan Bishop oo ay ka soo qaateen kooxda Southend oo heerarka hoose dhashay qiimo aan la shaacin ay United goolayahan ku soo qaateen. sidoo kale Sheffield United oo suuq carcar ahayd ayadana waxay gacanta ku soo dhigeen ciyaaryahanka lagu magacaabo Rijario Zivkovic oo u ciyaara kooxda lagu magacaabo Jangun Yatai waliba amaah ay ku soo qaateen. sidoo kale Arsenal Leeds waxay gacanta ku soo dhigeen Cedric Suarez oo amaah kaga soo qaateen Southampton halka kooxda Norwich dabcan ay soo qaateen ciyaaryahanka lagu magacaabo Sam McLemore waxayna ka soo qaateen kooxda Coventry qiimo aan la shaacin. Leeds waxaa la leeyahay kooxda Chelsea ciyaaryahan ay gacanta ku soo dhigeen ma jirto taabadalkeeda ayagana Oliver Giroud ay cishteen maadaama Frank Lampard uu ka niyad jabay maamulkiisa bishan Janaayo ciyaartoy u soo iibin waayeen. Lampard wuxuu leeyahay haatan waxa walaac ka qabaa sidii aan top 4 ku difaacan lahayn maadaama dabcan kooxaha kaabiga ugu soo hayaan sida Man United, Spurs iyo Arsenal dhamaantood ay ka faa'iideysan bisha Janaayo oo ciyaartoy soo qaateen laakiin naadiga Blues wax ciyaaryahan ma aysan soo qaadanin marka Lampard midaas walaac xoogan ayuu ka muujiyay daawadayaasha qiimaha badan. bal markaan aan tagna daawadayaasha qiimaha badan gudaha Italian Serie A iyo saxiixyada ka dhacay markii aan firino Leeds kooxda faa'iido waa AC Milan. kooxda AC Milan waxay sameeyeen laba saxiix ayay sameeyeen marka koowaad waxay gacanta ku soo dhigeen ciyaaryahanka dabcan ka soo qaateen kooxda Anderlecht ee lagu magacaabo Zilmakers qadka dhexe ka dheelishiis ama oo ay joogto ka dhigi karaan. sidoo kale Milan waxay dib ugu waceen Diego Laxalt ciyaaryahanka dabcan amaahda kaga maqnaa ee Torino joogay si uu u galo booska Ricardo Rodriguez kaasi oo dabcan asigana ku biiray kooxda kubadda cagta PSV Eindhoven. sidoo kale haddii aan firino ciwaanada gudaha Serie A Talyaaniga ka jira waxaa kamid Juventus waxay si rasmi u fasaxeen Emre Can oo ku biiray Borussia Dortmund nambarka 27 ayaa loo xiray waxayna ku qaateen Dortmund ama markuu xil ciyaareedkan soo ilaa Jarmalkana Juventus waxay ka heli doonaan iibinta iibiyeen 30 milyan oo euro ay dabcan ka heli doonaan. dhinaca kale markii la fiiriyo kooxda Fiorentina waxay gacanta ku soo dhigeen ciyaaryahanka lagu magacaabo Duncan oo ay ka soo qaateen Sassuolo wuxuuna qalin ku dugay heshiis 4 sano iyo bar. Sampdoria waxay gacanta ku soo dhigeen Japanese way araga Yoshido oo ay ka soo qaateen Southampton ama ay kaga soo qaateen. sidoo kale kooxda Atlanta waxay gacanta ku soo dhigeen ciyaaryahanka lagu magacaabo Adrian Tamisi waxayna ka soo qaateen kooxda Nice ama kadibna waxay ku iibsan doonaan 8 milyan oo euro. sidoo kale Leeds waxaa kamid ah kooxda Parma gacanta ku soo dhigeen ciyaaryahanka lagu magacaabo Gianluca Cabrari waxayna ka soo qaateen Sampdoria ama ay ku soo qaateen. sidoo kale ciyaaryahanka Juventus kale Marco Bajeka asagana si rasmi ama wuxuu u aaday kooxda Anderlecht ayuu dabcan ku biiray ciyaaryahanka Croatianka ah. dhinaca kale kooxda Genoa ayagana waxay si rasmi u soo qaateen ciyaaryahanka lagu magacaabo Iago Falcao oo u ciyaara kooxda Torino ama ay kaga soo qaateen kadibna way iibsan karaan. sidoo kale markii la fiiriyo kooxda Fiorentina waxay gacanta ku soo dhigeen ciyaaryahanka lagu magacaabo Sofian Amrabat oo ay ka soo qaateen Verona 20 milyan oo euro ayay ku qaateen. sidoo kale Kevin Prince Boateng si la yaab leh wuxuu kaga tagay Fiorentina wuxuuna ku biiray dhinacaasi kooxda Besiktas ayuu aaday ciyaaryahankan Ganiskana Besiktas waxay u noqotay naadigii 12aad uu ku biiro waayihiisa ciyaareed.
sidoo kale sheekooyinka gudaha Talyaaniga ka jira waxaa kamid in kooxda kubadda cagta Inter Milan suuqa uu ku xirmay ayagoo aan weeraryahan helin. Antonio Conte uu iska quustay maadaama suuqa xilliyada ugu dambeeyay aad iyo aad u adkaatay koox walba ciyaaryahan inay fasaxdo. sidoo kale haddii aan fiirino sheekooyinka Talyaaniga ka jira waxaa kamid Inter Milan waxay walaac ka qabaan Lautaro Martinez wakiilkiisa oo la sheegay heshiis qarsoodi in la gaarin kooxda Real Madrid waxayna ku qaadan doontaa markuu xilciyaareedkan soo ilaada 111 milyan oo euro waana dabcan lacagaha qandaraaskiisa lagu jebin kara Argentineskan. sidoo kale sheekooyin gudaha Talyaaniga ka jira waxaa kamid haddii aan fiirino kooxda AC Milan gabi ahaan bay ku fashilmatay qaadashada wiilka garabka bidix ka dhil Robinson oo wiigan u ciyaaro kadib markii labadan kooxood isfahmi waayeen. xitaa wiilkan waxaa dhacday Milan inuu u safray laakiin waa la soo celiyay maadaama 10 milyan oo labadan kooxood isku fahmi waayeen. sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Inter Milan waxaa la sheegay heshiis hordhac in la gaarin Dries Mertens ciyaaryahan ku dheelay kooxda Napoli markuu xilciyaareedkan soo ilaalay dabcan si toos u qaadan doona bilaash oo kontraktigiisa dhici doona kadib markii kooxda Napoli ay diideen daqiiqadihii ugu dambeeyay suuqa inay fasaxaan ayagoo walaac ka qabaan dabcan haddii uu ka tagay bedelkiisa inay waayaan. sidoo kale Inter Milan waxaa loo bandhigay Janis ay ku qaadan kareen ama ciyaartoyda ka ciyaaraan dhinaca Janis Super League oo ay kamid yihiin Cedric Pocampo iyo Salomon Rondon laakiin Inter Milan way iska diideen maadaama ciyaartoyda mushaar wali ay rabaan Inter Milan structure-ka mushaarkooda inay wax ka bedelaan. dhinaca kale AC Milan waxay bilaash ku qaadan doonaan markuu xilciyaareedkan soo ilaado ciyaaryahanka lagu magacaabo Pierre Calulu oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Olympique Lyon kaasi oo qandaraaskiisa gabagabo ku dhow yahay. daawadayaasha qiimaha badan bal markaan tagno gudaha Spain iyo ciwaanada ka jira markii aan fiirino Hilanesk Spain wuxuu yahay kooxda Barcelona maba aysan qaadan weeraryahan Dylan Degi suuqa Spain uu soo gabagabo ama xalay ayuu soo xirmay. haddaba Barcelona maxay sameeyeen? Barcelona waxay gacanta ku soo dhigeen laba ciyaaryahan oo Brazilian laakiin labadaba kooxdu kuma sugno. marka koowaad markaan fiirino ciyaaryahanka lagu magacaabo Trincao kooxda Braga ayay ka qaateen 30 milyan oo euro ayay ku liishiyeen laakiin markuu xilciyaareedkan soo ilaado ayuu dabcan kooxda imaan doonaa ama ayaa lagu sii naadiga Braga. silmada Brazil waxay ka keeneen ninka lagu magacaabo Matias Fernandes oo Palmeiras u ciyaaray ciyaaryahankan Barcelona dabcan tijaabada caafimaad ku gudbay kadib waxay amaah ku siiyeen kooxda Real Valladolid ee dabcan gudoomiye u yahay ama iska leeyahay Luis Nazario da Lima Ronaldo. sidoo kale Barcelona ciyaartoyda ka tageen waxaa kamid ah Carlos Aleno oo Besiktas ku biiray, Jean Collier Divo Schalke ku biiray, Carlos Perez oo Roma ku biiray, Musa Wage oo Nice ku biiray. sidoo kale Samuel Umtiti waxaa loo bandhigay kooxda Arsenal ama inuu ku aado laakiin ciyaaryahankan uu iska diiday oo wuxuu rabaa inta xilciyaareedkan ka harsan Camp Nou inuu sii joogo. sidoo kale waxaa la sheegay wakiilka Umtiti heshiis qarsoodi wuxuu la gaaray Inter Milan oo markuu xilciyaareedkan soo ilaalay Inter uu ku biiri doona si uu badal ugu noqdo ninka lagu magacaabo dabcan Diego Godin oo Inter Milan iska fasaxayaan. dhankaas Real Madrid markii aan fiirino Real Madrid bishan Janaayo waxay u ahayd bil ay ka gaabsadeen suuqa kaliya kooxdan waxaa ku soo biiray ciyaaryahanka lagu magacaabo Renier Braziliankan waxay ka soo qaateen kooxda Flamengo oo 30 milyan oo euro ayay kaga keeneen. ciyaartoyda Madrid ka tageen waxaa kamid ah dabcan inta badan amaah ay ku diiween markii la fiiriyo goolhayo Lonin oo ku biiray kooxda Oviedo, sidoo kale Joseph Vallejo oo ku biiray Granada, Alvaro Adrizola oo FC Bayern Munchen ku biiray, Di Frutos oo kooxda Rayo Vallecano la siiyay. dhinaca Atletico Madrid markii aan fiirino kooxda Simeone ayagoo dabcan natiijo wanaagsan gudaha garoonka aan ku helin haddana saxiima aysan sameyn inta badan kaliya kooxdan waxaa ku soo biiray Yannick Carrasco oo ay ka keeneen Darlan Yavanga wax ciyaaryahan oo kooxdan ka tagay ma jirto. Atletico Madrid waxay ku fashilmeen qaadashada Edison Cavani. sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay gudaha Spain waxaa kamid ah kooxda Real Madrid gacanta ku soo dhigay wiilka mustaqbalka wanaagsan ee kooxda Villarreal u ciyaaray ee lagu magacaabo Morante waxayna la gaareen heshiis gaaray ilaa June 2023. Morante wuxuu kamid yahay ciyaartoyda xulka Spain da koosay 19 sano bandhig fiican ayuuna sameeyaa. wiilkan qadka dhex kaga dheelay kooxda Villarreal Evan Morante wuxuu doortay kooxda Real Madrid wuxuuna si dhaqsi qayb kaga noqon doona kooxda labaad ee Madrid ee loo yaqaan Castilla ama Madrid B halkaas ayuu dabcan waayiis ciyaareed ka sii wadan doona. sidoo kale kooxda Sevilla markii aan fiirino agaasimahooda Manju wuxuu sameeyay saxiix muhiim ah kamid yihiin ciyaaryahan Al-Nassr oo ka soo qaatay kooxda Liga kuba sameeyay Suuso inuu ka keenay kooxda AC Milan oo ay amaah ku qaateen kadibna dabcan waxay ku iibsan doonaan 20 milyan oo euro. kooxdan ciyaartoyda ka tagan waxaa ugu caansan Javier Hernandez Jarito oo ku biiray kooxda LA Galaxy wuxuuna aaday Jarito MSL Major Soccer League ayuu aaday. sidoo kale waxaa ka tagay ciyaaryahan Dabur oo ku biiray kooxda Hoffenheim. markii aan fiirino kooxda lagu magacaabo Real Valladolid inkastoo qaybaha hoose ay ku jiraan haddana gudoomiyaha iskale ama milkiilaha kooxdan iskale ninka lagu magacaabo Luis Nazario da Lima Ronaldo wuxuu qaatay kaalintiisa kadib markii kooxdan uu keenay Hatem Ben Afra oo ay free ku soo qaateen iyo Matias Fernandes oo ay dabcan ka soo qaateen kooxda Barcelona ama kaga soo qaateen waxay ka dhigantay marka Ronaldo inuu sameeyo dhaqdhaqaaq ama wajigiisa kooxdan waxa uu keenay. dhinaca Valencia markii aan fiirino kooxdan waxaa imaaday ciyaaryahan Florenzi waxaana ka tagay Lato oo ku biiray Osasuna. Valencia waxay ku guuleysteen weeraryahankooda Rodrigo Moreno inay ka ceshtaan kooxda Barcelona oo qalqaalo xoogan ugu jira. sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan dhinacaasi Faransiiska haddii aan tagno ciyaaryahanka Cavani ee dabcan jabka ugu weyn la kulmay kadib markii la waayay koox qaadato Paris Saint-Germain ay diideen ciyaaryahankan 30 milyan oo euro qiimaha ay ku doonayaan hoos inay u dhigaan. taasi waxay ka dhigan tahay marka in Cavani markuu xilciyaareedkan soo ilaa si bilaash kaga tagi doono Paris Saint-Germain. dhankaasi Bundesliga Jarmalka markii aadna kaliya waxaa ciwaano sameynaysa kooxda Borussia Dortmund oo Emre Can gacanta ku soo dhigtay
sababtoo ay kooxda FC Bayern Munchen mar hore ay dabcan suuq isaga baxeen sidoo kale Dortmund waxay hore u qaateen ciyaaryahankii Haaland marka waxa la leeyahay Borussia Dortmund si adag isku dhisay waana kooxda kaliya Bundesliga wacdaraha ka dhigan suuqa yaanan ka reebin sidoo kale kooxda Hertha Berlin oo gacanta ku dhigtay Christoph Piatek waxayna ka soo qaateen dabcan kooxda AC Milan ayagoo 27 milyan oo euro ku soo qaateen daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinkii suuqa si gaar kaga hadlayaan transfer deadline day maalinka ugu dambeeyay suuqa intaas ayaan kusoo ilaalinayna fadlan fikirka ay ka dhibay ciyaartooyda la kala qaatay ayadoo dabcan ciwaanada ugu waaweyn ee sameynaysa kooxda Man United kadib markii ay gacanta ku dhigan Eden Igalo Nigerianka dhanka weerarka ayuu ka caawin doonaa maadaama Marcus Rashford muddo dheer garoomada ka maqnaan doono fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu